wacan oo wanaagsan dhegaystayaal iyo daawadayaal meel kastoo aad caalamka ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka waxqabadka dawladda oo isbuuc walba kala socotaan warbaahinta qaranka qaybaheeda kala duwan annaga oo ku falanqeyno waxqabadyadii iyo horumaradii ugu muhiimsanaa uguna waaweynaa ay ku tallaabsato dawladda qaybaheeda kala duwan barnaamijkan ayaa waxaa soo diyaariyay idina soo jeedinaya maxamed cali juxaa waxaana isku soo dubaridaya Saacdiya Xaaji Aways waxaana ka warbixiyay kusimaha wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Cabdiraxmaan Iidan Yoonis waa mar kale iyo barnaamijkii waxqabadka dawladda dalkiyo dadka dugsi u tahay dawladnimo dalkiyo dadka dugsi u tahay dawladnimo difaac minni madaadu tahay dawladnimo difaac minni madaadu tahay dawladnimo kowdii bishan February sanadkan 2018 ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir dhagax dhigay xarunta degmada Wadajir oo muddo burbursanayda gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Engineer Yarisow ayaa dhagax dhigay xarunta degmada Wadajir oo ku burburtay qaraxii ka dhacay bishii Juun ee sanadkii hore waxaana munaasabada dhagax dhiga ka soo qayb galay xildhibaan oo ka tirsan labada aqal maamulka degmada siyaasiyiin iyo qaybaha bulshada Engineer Yarisow ayaa ka codsaday bulshada degmada Wadajir in la shaqeeyo maamulka degmada iyo kan gobolka Banaadir isla markaana loo midoobo sidii looga hortagi lahaa cid kasta oo cadow ku ah nabadda caasimadda isla 1 Febraayo 2018 ayaa agaasimaha hay'adda socdaalka ee jinsiyadda tababar u soo xiray madaxda waaxyaha hay'adda agaasimaha guud ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya Colonel Maxamed Aadan Koofi ayaa soo xiray tababar 2 maalin u socday madaxda waaxyaha hay'adda oo lagu baranayay habka isku jaangooyinta maaliyadda iyo baahiyaha xafiisyada ugu dambeyn agaasimaha ayaa tababarka soo xiray waxaana uu ku amray madaxda tababarka loo soo xiray inay gaarsiiyaan tababarka ay qaateen saraakiisha kale ee hay'adda ka howlgasha sidoo kalena waxyaabaha ay barteen laga dhaqan geliyo xafiisyada hay'adda isla 1 Febraayo sanadkan 2018 ayaa shirka golaha wasiirada looga hadlay sharciga shirkadaha amniga dalka iyo arrimo kale shirka golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa looga hadlayay soo bandhigida jadwal howleedka shaqo ee tubta siyaasadda loo dhan yahay warbixin ka hadlaysay xaaladda hubiyada Jubba iyo Shabeelle iyo sharciga shirkadaha oo markaasi loo qaybiyay golaha wasiirada si ay u soo akhriyaan warbixin ku saabsanayd shirka dhaqaalaha adduunka amniga dalka iyo arrimo kale 2 Febraayo sanadkan 2018 ayaa xogayaha gobolka Banaadir tababar u soo xiray 150 dhalinyaro oo la baray xirfado kala duwan xogayaha guud ee maamulka gobolka Banaadir mudane Cumar Cabdirasaaq Xuseen ayaa soo xiray tababar socday muddo 3 bilood oo markaasi loo sameynayay dhalinyarada gobolka Banaadir oo gaaraysay 150 dhalinyaro ah kuwaasi oo la baray xirfado kala duwan mudane Cumar Cabdirasaaq ayaa ku bogaadiyay dhalinyaradani in xirfadaha la baray ay uga faa'iideeyaan bulshada marka ay dib ugu laabtaan degmooyinkooda 3 Febraayo sanadkan 2018 ayaa ra'iisul wasaare ku-xigeenka daahfuray kulan loogu qiimeynayay qaab dhismeedka iyo casriyeynta hay'adaha dawladda ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa daahfuray kulan lagu qiimeynayay dibna loogu eegayay qaab dhismeedka iyo casriyeynta hay'adaha dawladda
kulankan oo lagu qabtay xarunta Akadeemiyadda Cilmiga Fanka iyo Suugaanta waxaa ka qayb galay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada, gudoomiyaha guddiga qaran ee shaqaalaha rayidka, agaasimayaal, madax waaxidyo iyo mas'uuliyiin ka socotay hay'adaha dawladda. kulankan oo uu daafuray ra'iisul wasaare ku-xigeenka ayaa ahaa wejiga labaad qorshe ay dawladdu dib ugu habeynaysay qaab dhismeedka hay'adaha dawladda, iyadoo xukuumaddu ku guuleysatay dib u dhiska 10 ka mid ah hay'adaha dawladda. inta aan laga hadal waajibaadka qofka looga baahan yahay xuquuqdiisii tamartu meel ayna dhigtaba inaynu meel saarno, xuquuqdii lagu dadaalo, dabeedna qofka moralkiisa iyo niyadiisa waayo qof waliba mas'uuliyad baa saaran, reer buu ka mas'uul yahay, naftiisu ka mas'uul yahay, bulshadu ka mas'uul yahay, waa in xuquuqdiisii meel la saaraa. isla 3 Febraayo sanadkan 2018 ayaa maamulka gobolka Banaadir gaar ahaan waaxda fayadhowrka raashin iyo daawooyin dhacay ku wareejiyay ilaamaha amniga. waaxda fayadhowrka ee gobolka Banaadir u qaabilsan ka hortagga waxyaabaha dhacay iyo qiimeynta tayada badeecadaha kana howlgasha dekedda weyn ee Xamar ayaa soo bandhigtay raashin iyo daawooyin uu waqtigoodu dhammaaday, taasoo ay ku wareejiyeen ilaamaha ammaanka si loo gubo. gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta gobolka Banaadir Marwo Basmo Caamir Shakeeti oo kormeer ku tagtay goobahaasi laga helay agabka dhacay ayaa sheegtay in dawladda hoose oo kaashanaysa hay'adaha ku shaqada leh iyo laamaha amniga ay tallaabo ka qaadi doonaan cid walba oo magaalada soo gelinaysa alaabooyin dhacay. isla 3 Febraayo sanadkan 2018 ayaa maamulka gobolka Banaadir yeeshay kulan looga hadlayay dakhliga gobolka, natiijo wanaagsanna laga soo saaray. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Yarisow ayaa kulan la qaatay qaybta maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir, iyadoo warbixino kala duwan looga dhageystay agaasimayaasha dakhliga kala duwan oo soo bandhigay dakhligii soo xarooday sanadkii hore si loo qorsheeyo dakhliga uu sanadkani ku howlgali lahaa gobolka Banaadir. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan waxa uu xusay dawladda hoose ee Xamar in qorshaheedu yahay sanadkan 2018 horumar baaxad leh in laga sameeyo adeegyada kala duwan ee laga bixiyo caasimadda. 4 Febraayo sanadkan 2018 ayaa is-afgarad dhexmaray wasaaradda ganacsiga federaalka Soomaaliya iyo wasaaradaha ganacsiga maamul goboleedyada dalka. kulankani oo ujeedkiisu ahaa sidii loo horumarin lahaa wax soo saarka ganacsiga Soomaaliya iyo sidii suuqyo cusub loogu furi lahaa wax soo saarka beeraha, xoolaha iyo kalluunka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho, kaasi oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya. waxaa kulankani ka qayb galay wasiirada ganacsiga iyo warshadaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedyada iyo madaxda rugaha ganacsiga Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada, iyadoo intii uu kulankaasi socday si weyn loogu gorfeeyay sidii loo heli lahaa fursado sahlaya in badeecadaha dalka ay helaan suuqyo caalami ah loona dhoofin karo. ganacsatada Soomaaliyeed nala fahanto si aan suuqyo u helno inay ogolaato shuruucda, inay ogolaato quality control alaabta ay soo dejinayeen ku dhoofinayaan. haddaanay quality control-ka ogolaan ama qiimeynta tayada alaabta ay dhoofinayaan annaguna suuq uma heli karay. isla 4 Febraayo sanadkan 2018 ayaa wasiirada kalluumaysiga iyo howlaha guud oo Baydhabo kulamo kula lahaa madaxda Koonfur Galbeed Soomaaliya, natiijo wax ku ool ah ka soo baxday. wasiirada kalluumaysiga iyo howlaha guud ee xukuumadda Soomaaliya oo ku sugnaa magaalada Baydhabo ayaa halkaasi kulamo kula lahaa madaxda dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Xaashi, wasiirka kalluumaysiga Soomaaliya, iyo sidoo kale wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska Soomaaliya Saadiq Cabdullaahi Cabdi ayaa kulamada ay la lahaayeen madaxda Koonfur Galbeed waxay ku saleysnaayeen horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha, gaar ahaan horumarinta kalluumaysiga iyo dib u dhiska jidadka. isla 4 Febraayo sanadkan 2018 ayaa guddiga taakulaynta ciidanka xoogga dalka wacyigelin u sameeyay ciidanka booliiska.
munaasabada lagu wacyigelinayay ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo ku aadanayd isticmaalka muqaadaraadka iyo sidii ay habdhaqanka bulshada u wanaajin lahaayeen lagu qabtay magaalada Muqdisho. munaasabada ayaa waxaa soo qaban qaabiyay guddiga qaran ee taakulaynta ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, waxaana inta badan diiradda lagu saarayay munaasabada sidii ciidamada qalabka sida looga wacyigelin lahaa muqaadaraadka iyo inay si wanaagsan ula dhaqmaan bulshada Soomaaliyeed ee ay u shaqeeyaan. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ahna taliyaha guud ee ciidanka xoogga dalka Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa sanadkii tagay ee 2017 ka magacaabay guddiga taakulaynta iyo wacyigelinta ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, kuwaasi oo ka shaqeynayay sidii looga taageeri lahaa ciidamada qalabka sida oo har iyo habeen u taagan difaaca dalkeena Soomaaliyeed. qof daciif ah oo baaba'san oo himilada weyn uu maalin walba higsanaya ay tahay talow maanta xageed kiila jaada iyo qadadii ka heshaa. ninka Soomaaliyeed ee la rabo dalka inuu dhisana hadduu hankiisu ninka dhalinyarada asaas noqdo horumar dal iyo dad ma gaari karo. isla 4 Febraayo sanadkan 2018 ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir kormeer shaqo ku tagay degmada Kaxda. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow ayaa kormeer shaqo ku tagay degmada Kaxda ee galbeedka magaalada Muqdisho, halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen maamulka iyo shacabka degmadaasi. kormeerkan ayaa waxaa ku weheliyay gudoomiyaha gobolka Banaadir, ku-xigeenadiisa arrimaha amniga, siyaasadda iyo arrimaha bulshada iyo wasiiro ka tirsan golaha xukuumadda federaalka Soomaaliya. isla 4 Febraayo sanadkan 2018 ayaa wasaaradda gaadiidka iyo shirkadda Sahal heshiis kala saxiixday. wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa kormeer ku tagay xarunta Sahal ee rakaabka ee ka dhoofa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho u fududeysa adeegyadooda iyada oo isticmaalaysa basas. intii wasiirku kormeerka ku jiray ayaa waxa uu la kulmay shaqaalaha shirkadda oo ay ku jiraan dad naafa ahaa, isagoo ku dhiirigeliyay shaqadooda. wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Mudane Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar iyo maamulaha shirkadda Jibriil Maxamed Geedi ayaa kala saxiixday heshiis afgarad oo dib loogu eegayo howlaha shirkadda ay bulshada u qabato. 5 Febraayo sanadkan 2018 ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir joojiyay dhismaha ka socday dhulka ka soo horjeeda dekedda. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow ayaa warqad si rasmi ah ku joojinayo dhismaha ka socday dhulka ka soo horjeeda dekedda magaalada Muqdisho ee degmada Xamar Jajab, kadib markii uu warbixin ka dhageystay waaxda dhulbixinta ee gobolka Banaadir. waxa uuna ku wargeliyay hay'adaha ay khusayso joojinta howlaha dhismaha, isagoo tilmaamay in loo dulqaadan karin in dhismayaal sharci darro ah laga sameeyo dhulalka danta guud. isla 5 Febraayo sanadkan 2018 ayaa xarunta Akadeemiyadda Cilmiga, Fanka iyo Suugaanta qabatay munaasabad loogu mahadcelinayay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. xafladan oo lagu qabtay xarunta Akadeemiyadda Cilmiga, Fanka iyo Suugaanta ayaa ujeedadeedu ahayd in xukuumadda looga mahadceliyo bixinta mushaaraadka shaqaalaha ee sanadkii tagay iyo xuska sanad guurada koobaad ee ka soo wareegatay dib u howlgelinta xiriirka guud ee ururada shaqaalaha. waxaana ka qayb galay ra'iisul wasaaraha dalka Mudane Xasan Cali Khayre, wasiirka maaliyadda, wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, gudoomiyaha guddiga qaran ee shaqaalaha rayidka iyo qaar ka mid ah shaqaalaha dawladda. haddii aad og tahay dawladdan dhaqaalaheedu uu weli kobcaya, uu weli yahay gurguura, haddii aad og tahay in qof ay mushaar qaadato iyadoon dawladda u shaqaynin, haddii aad og tahay in sida adigu aad soo kallahdo qof aan soo kallahin uu jira, bishina fariinta ku soo dhacda iyagana ay u soo dhacdo, ogsoonow inaad dambiilo tahay.
isla 5 Febraayo sanadkan 2018 wafdi uu hogaaminayo wasiiru dowlaha howlaha guud ayaa kormeer shaqo ku tegay magaalada Hobyo. wafdi isugu jiray wasiiro iyo xildhibaano oo uu hogaaminayay wasiiru dowlaha howlaha guud ee xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo mas'uuliyiin ka socotay shirkad Shineys ahayda ayaa gaaray magaalada Hobyo ee gobolka Mudug, waxaana degmada si weyn ugu soo dhaweeyay wasiirada iyo xildhibaanada ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo mas'uuliyiinta maamulka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ee ku dhaqan halkaasi. wafdiga dowladda iyo saraakiisha ka socotay shirkadda Shiineyska ahayda ee gaaray degmada Hobyo ayaa qiimeyn ku sameynayay dhismaha dekedda Hobyo oo ah isha dhaqaalaha Galmudug, midaasi oo dhawaan dhagax dhigay madaxweynaha jamhuuriyadda. isla 5 Febraayo sanadkan 2018 ayaa ra'iisul wasaare Khayre daahfuray xafladda sanad guuradii koowaad ee dib u howlgelinta xiriirka guud ee ururada bulshada dowladda. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa ka qayb galay munaasabad si heer sare ah loo soo abaabulay oo ka dhacday xarunta Akadeemiyadda Cilmiga, Fanka iyo Suugaanta oo ay soo qaban qaabiyeen xiriirka guud ee ururada shaqaalaha dowladda. xafladan ayaa lagu soo bandhigay wax ka qabadka ururka sanadka jirsaday iyo u mahadcelinta xukuumadda ra'iisul wasaare Khayre oo ahmiyad weyn siisay shaqaalaha dowladda. munaasabadan oo ka soo qayb galeen wasiiro, xildhibaano, xiriirka guud ee ururada shaqaalaha dowladda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ugu horeyntii lagu soo bandhigay wax qabadka xiriirka guud ee sanad jirsaday, waxaana sidoo kale lagu soo bandhigay shakhsiyaadkii howlkarnimada muujiyay muddadii uu jiray ururku, iyagoona goobta lagu guddoonsiiyay shahaado sharafyo. 6 Febraayo sanadkan 2018 ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya daahfuray shirka amniga qaranka. magaalada Muqdisho ayaa ka furmay shirka amniga qaranka oo u dhaxeeyay madaxda dowladda Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada, waxaana looga hadlayay xaaladda guud ee amniga dalka, waxyaabihii ka qabsoomay shirkii hore iyo wixii ka qabsoomin. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ahaa gudoomiyaha shirka ayaa furay kulanka, waxaana sidoo kale ka qayb galayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Xasan Cali Khayre, ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka, dhammaan madaxda dowlad goboleedyada, gudoonka gobolka Banaadir, wasiirada cadaaladda, arrimaha dibadda, arrimaha gudaha, gaashaandhigga, amniga, la taliyayaasha madaxweynaha iyo hoggaanka kala duwan ee ciidamada qalabka sida. 6 Febraayo sanadkan 2018 ayaa wasaaradda warfaafinta daahfurtay tababar ay ka soo qayb galayeen 50 saxafi oo ka kala socday warbaahinta qaybaheeda kala duwan. tababarkan la xiriiray wararka iyo arrimaha taagan oo ay ka faa'iideysanayeen ilaa iyo 50 wariye oo ka kala socday warbaahinta qaranka iyo warbaahinada madaxa bannaan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay wasaaradda warfaafinta, dhaqanka iyo dalxiiska. tababarkan oo soconayay muddo 3 maalin ahaa waxaa furitaankiisa ka qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta, dhaqanka iyo dalxiiska ee dowladda Soomaaliya ahna siihayaha xilka wasiirka warfaafinta, agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta, guddiga qaran ee shaqaalaha rayidka iyo sidoo kale waaxyaha shaqaalaha iyo tababarada iyo sidoo kale xiriirka gobolada. 7 Febraayo sanadkan 2018 ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir dhagax dhigay dhismaha wadada Via Roma. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yariso ayaa dhagax dhigay dayactirka wadada Via Roma ee degmada Xamarweyne. mashruucan laamiga lagu saarayo wadada ayaa waxaa iska kaashanaya maamulka gobolka Banaadir iyo bulshada ku dhaqan degmada. gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa sheegay in la qorsheynayo sidii dib loogu dayactiri lahaa dhammaan wadooyinka kale ee burburka soo gaaray si loo soo celiyo bilicdii iyo quruxdii ay ku naaloon jirtay caasimadda dalka. isla 7 Febraayo sanadkan 2018 ayaa jaamacadda ummadda 200 oo qof ka qaaday imtixaan shaqo, kuwaasi oo ka qalin jibiyay jaamacadaha dalka. arday ka soo qalin jibisay jaamacadaha kala duwan ee dalka ayaa waxaa xarunta jaamacadda ummadda Soomaaliyeed looga qaaday imtixaan la xiriiray shaqo dhaqaatiir iyo kalkaaliyayaal, waxaana dadka ku guuleysta imtixaankani ku biirayeen hoggaanka caafimaadka ciidamada xoogga dalka. shakhsiyaadka ku guuleysta imtixaankani ayaa waxa ay ka shaqeyn doonaan cisbitaalka ciidanka xoogga dalka, sidoo kalena la geyn doono xarumaha ciidamada ee gobolada dalka, maadaama la rajaynayo inay ka bilowdaan
howlgallo guud ahaan dalka looga saarayo cadowga nabaddiidka ah. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa horey u amray in ciidamada xoogga dalka ay ka soo dhex muuqdaan dhalinyarada waxbaratay si loogu guuleysto in guud ahaan dalka amnigiisa la sugo, dhalinyaradana ay fursad u helaan inay dalkooda wax ugu qabtaan aqoontooda ay leeyihiin. 8 Febraayo sanadkan 2018 ayaa sihayaha xilka wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalk Soomaaliya magacaabay maareeyaha golaha murtida iyo wacyigelinta. sihayaha xilka wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Cabdiraxmaan Iidaan Yunis ayaa maareeyaha golaha murtida iyo wacyigelinta u magacaabay Abwaan Cismaan Cabdullaahi Guure isaga oo xilkii ka qaaday maareeyihii hore ee golaha murtida. sidoo kale sihayaha xilka wasiirka warfaafinta ahna ku-xigeenka wasiirka warfaafinta ayaa Cabdikariim Faarax Qaarey u magacaabay maareeyaha ku-xigeenka golaha murtida iyo wacyigelinta. golahan ayaa horey loo dhihi jiray golaha murtida iyo madadaalada iyadoo haddana loo bixiyay golaha murtida iyo wacyigelinta. golaha murtida iyo madadaalada ayuu ahaan jiray tiyaatarku markii hore, laakiin maanta laga bilaabo wuxuu noqon doonaa golaha murtida iyo wacyigelinta. isla 8 Febraayo sanadkan 2018 ayaa wasaaradda warfaafinta tababar u soo xirtay 50 saxafi. mudane Cabdiraxmaan Iidaan Yunis sihayaha xilka wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ahna wasiir ku-xigeenka ayaa magaalada Muqdisho tababar ugu soo xiray ilaa 50 saxafi oo ka kala socday warbaahinta dowladda Soomaaliya iyo kuwa sida gaarka ah loo leeyahay. tababarkani oo socday muddo 3 maalmood ahaa ayaa lagu baranayay casharo la xiriiray tayeynta iyo sare u qaadida aqoonta wariyeynimo gaar ahaan arrimaha wararka iyo arrimaha taagan. tababarkan ayaa waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska. 8 Febraayo sanadkan 2018 ayaa madaxda wasaaradda warfaafinta kulan sugootina u sameeyay wafdi ka socday Finland. sihayaha wasiirka warfaafinta ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane Cabdiraxmaan Iidaan Yunis, agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta mudane Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Al-Cadaala, agaasimaha maamulka iyo maaliyadda mudane Cabdinaasir Xuseen Xasan, agaasimaha telefishinka qaranka mudane Liibaan Cabdi Cali, agaasimaha shaqaalaha iyo tababarada mudane Cabdiraxiin Ciise Cadow iyo xubno kale ayaa ka qayb galay kulan sagootin ahaa oo loo sameeyay tababarayaal dhanka saxaafadda ah oo ka socday hay'adda horumarinta warbaahinta caalamka ee dalka Finland ee magaceeda loo soo gaabiyo Fikas. 9 bishii Febraayo sanadkan 2018 ayaa dowladda Soomaaliya dib u howlgelisay dugsiga sare ee 15 Meey. dib u howlgelinta dugsiga 15 Meey waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda Soomaaliya, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, safiirka dowladda Masar u fadhiya Soomaaliya Mr. Waliid Ismaaciil, maamulka degmada Warta Nabadda, fanaaniin iyo qaybaha bulshada. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Injineer Yarisow ayaa qayb u kormeeray fasalada ay wax ku bartaan ardayda isagoo ardayda ku dhiirigeliyay inay si wanaagsan wax u bartaan isla markaana ay waxbarashada u huraan waqtigooda si ay uga mid noqdaan badbaadiyaasha mustaqbalka Soomaaliya. Injineer Yarisow ayaa sheegay in maamulkiisa ahmiyad gaar ah uu siin doono horumarinta adeegyada bulshada sida waxbarashada, isagoo sidoo kale si gaar ah ugu mahadceliyay dowladda Masar oo iyadu bixinaysa qarashaadka barayaasha wax ka dhigaya iskuulka 15 Meey. 10 Febraayo sanadkan 2018 ayaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah federaalka iyo maamulka gobolka Banaadir wada gaaray heshiis ku meel gaar ah oo ku saabsanaa dakhliga ruqsad bixinta kalluumaysiga. heshiiskan ay wada gaareen dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah federaalka iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa uu qornaa sida tan: annagoo tixgelinayna baahida weyn ee loo qabo ilaalinta, maareynta iyo si joogto ah looga faa'iideysto kheyraadka kalluunka badda, annagoo aqoonsan muhiimadda ay leedahay in dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay heshiis ku gaaraan dakhliga kalluumaysiga. markaan aragnay baahida loo qabo
ilihii dhaqaalaha dalka dib loo soo nooleeyo si ay dowladda ugu suura gasho inay ku filaato bixinta qarashyada sugidda amniga iyo dib u dhiska waddanka oo ay ugu muhiimsan yihiin dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka. markaan aragnay baahida loo qabo in si cadaalad ah oo hufan loo maamulo dakhliga kalluumaysiga, markaan aragnay qodobka 52 ee dastuurka ku-meelgaarka ah oo qeexaya in awoodaha iyo dakhliga kheyraadka ay ka wada xaajoonayaan dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka, markaan aragnay qodobka 14 ee sharciga kalluumaysiga Soomaaliya ee soo baxay 2014 kuna saabsan rukhsadaha kalluumaysiga, markaan tixgelinay danta guud ee dalka iyo dadka waxaan ku heshiinay qodobadan soo socda. qodobka 1 dhinacyada heshiiska. waxaa heshiiskan wada gaaray dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo maamulka gobolka Banaadir. qodobka 2 bixinta rukhsadaha kalluumaysiga wixii ka sareeya 24 nautical miles oo aaga dhaqaale ee eas loo yaqaano waxaa u xil saaran dowladda federaalka ah oo ay mas'uul uga tahay wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda. bixinta rukhsadaha wixii ku eg 24 nautical miles waxaa u xil saaran dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka. 2 wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda waxay wakiilo ku yeelanaysaa caasimadaha dowlad goboleedyada si ay u fududeeyaan soo gudbinta macluumaadka la xiriira bixinta rukhsadaha kalluumaysiga iyadoo la tixgelinayo habraacyada u degsan rukhsadda bixinta waafaqsan sharciga kalluumaysiga Soomaaliya. 3 qiimaha curaarta ee rukhsad bixinta kalluumaysiga waxaa lagu saleynayaa nooca kalluunka iyo muddada rukhsadda oo uu codsaduhu soo weydiistay iyadoo la tixgelinayo tartanka sayladaha ee qiimaha bixinta rukhsadaha. 4 habraaca qiimaha rukhsad bixinta iyo macluumaadka codsiga kalluumaysiga waxaa loo raacayaa heerka caalamiga ah ee codsiga rukhsadaha kalluumaysiga ee ku lifaaqan heshiiskan. qodobka 3 hay-adda kalluumaysiga Soomaaliyeed waxaa la abuurayaa hay-adda kalluumaysiga Soomaaliyeed oo mas'uul ka ah ilaalinta kalluumaysiga Soomaaliyeed. hay-addaasi waxaa gudoominaya wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee federaalka waxaana xubno ka ah wasiirada kalluumaysiga dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka. xilka iyo waajibaadka hay-adda kalluumaysiga Soomaaliyeed waxaa soo saaraya guddiga amniga qaranka oo ka kooban madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya, ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, madaxweynayaasha dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka Soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir. qodobka 4 kaydinta iyo maamulidda dakhliga ka soo xirooda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda. dakhliga ka soo xarooda rukhsadaha kalluumaysiga waxaa lagu kaydinayaa xisaab gaar ah oo laga furi doono bangiga dhexe ee Soomaaliya. qodobka 5 qaybsiga iyo ujeedooyinka loo isticmaalayo dakhliga. qaybsiga iyo ujeedooyinka isticmaalka dakhliga ka soo xirooda kalluumaysiga waxaa go'aan ka gaaraya guddi ka kooban madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya, ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir iyadoo mudnaan gaar ah la siin doono arrimaha amniga iyo dib u dhiska dalka. qodobka 6 habka maamulka xisaabta. hanaanka maamulka xisaabta dakhliga kalluumaysiga ee ka furan bangiga dhexe ee Soomaaliya waxaa loo raacayaa hanaanka maaliyadeed ee dalka u degsan oo loo yaqaano maamulka xisaabaadka ama Public Financial Management. waxaa xisaabta lacag looga saari karaa amarka guddiga madaxa fulinta dowladda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir iyadoo amarka lacag bixinta uu digreeto ku soo saarayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. 2 wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka oo u xil saaran soo xireynta dakhliga iyo bixinta kharashaadka waa inay si daahfuran oo waafaqsan hab xisaabeedka sharciga waafaqsan u maamusho dakhliga ka soo xirooda kalluumaysiga. 3
maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya waa inay leeyihiin hab xisaabeedka maamulka maaliyadda oo daahfuran. qodobka 7 wax ka bedelka heshiiskan wax lagama bedeli karo ilaa ay ku heshiiyaan dhinacyada heshiiskan uu khuseeyo. qodobka 8 muddada heshiiskan waxa uu dhaqangal yahay ilaa iyo inta dowladda federaalka iyo dowladaha xubinta ka ah dowladda iyo maamulka gobolka Banaadir ay ka gaarayaan heshiis dhammaystiran ee ku saabsan qaybsiga dakhliga ka soo xirooda kalluumaysiga. qodobka 9 dhaqangelinta heshiiskan waxa uu dhaqangelayaa marka ay wada saxeexaan dhinacyada heshiiska dowladda federaalka Soomaaliya waxaana u saxeexay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre, madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaaza, madaxweynaha Puntland mudane Axmed Maxamed Islaam, madaxweynaha Jubbaland mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan, madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Axmed Ducaale Geelle, madaxweynaha Galmudug mudane Maxamed Cabdi Waare, madaxweynaha Hirshabeelle mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan, gudoomiyaha gobolka Banaadir. 12 Febraayo sanadkan 2018 ayaa duqa Muqdisho furay ololaha nadaafadda iyo bilic soo celinta caasimadda. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yariso ayaa ka qayb galay ololaha nadaafadda iyo bilic soo celinta caasimadda oo si rasmi ah uga bilowday Muqdisho. gudoomiyaha ayaa socod ku maray goobaha qashinka laga gurayay oo kamid ahaa degmada Xamarweyne, waxa uuna gacantiisa kaga qayb qaatay gurida qashinka isagoo ku dhiirigeliyay shacabka Muqdisho inay kaalintooda ay ka qaataan bilicda caasimadda oo muhiim u ah soo celinta sharaftii ay lahayd caasimadda. isla 12 Febraayo sanadkan 2018 ayaa militariga Soomaaliya howlgallo kula wareegay deegaano iyo saldhigyo al-shabaab ku lahaayeen Shabeellaha Hoose. ciidamada militariga Soomaaliya oo kaashanaya kuwa AMISOM ayaa al-shabaab kala wareegeen deegaamo iyo saldhigyo dhowr ah oo ku yilay gobolka Shabeellaha Hoose. howlgallo ballaaran oo ay sameynayeen ciidanka xoogga dalka ayaa u suura gashay in al-shabaab ka qabsadaan deegaanada Awdeegle, Mubaarak, Daarusalaam, Malable iyo tuulooyin hoostaga degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellaha Hoose. 13 Febraayo sanadkan 2018 ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir degmada Boondheere ka furay barnaamijka waxbarashada dadka waaweyn. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yariso ayaa degmada Boondheere ka furay barnaamij ku saabsan waxbarashada dadka waaweyn ee lagu la dagaalamayo jahliga. barnaamijkan oo muddo socon doona ayaa waxa la rabaa in laga hirgeliyo dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir iyadoo qorshuhu yahay in dadka caasimadda ku nool ay wax akhrin karaan waxna qori karaan. isla 13 Febraayo sanadkan 2018 ayaa wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya daafuray mashruuc shaqo loogu abuurayo dhalinyarada. mudane Cabdiraxmaan Ducaale Bayle, wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ku daafuray mashruuc ku saabsan shaqo abuur loo sameynayo dhalinyarada Soomaaliyeed. daafurka mashruucan oo ahaa mid loogu talagalay hab shaqo abuur loogu sameyn karo dhalinyarada Soomaaliyeed iyo kaalinta horumarinta dalka, isla markaana laga qayb qaato sidii dalka looga fulin lahaa mashaariic waxtar u leh bulshada Soomaaliyeed. isla 13 Febraayo sanadkan 2018 ayaa ciidanka xoogga dalka al-shabaab ka saaray degmada Sablaale ee gobolka Shabeellaha Hoose. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa midowga Afrika ee AMISOM oo ka ruqaansaday degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa gaaray degmada Sablaale halkaasi oo ay ku sugnaayeen al-shabaab. gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Hoose mudane Ibraahim Aadan Najax ayaa sheegay in degmada Sablaale gacanta ku hayaan ciidanka xoogga dalka, isagoo xusay in xaaladda degmada ay tahay mid degan una socdo baaritaano ammaanka lagu xaqiijinayo. intaas ayaynu maanta kusoo koobaynaa barnaamijka waxqabadka dowladda Soomaaliya. barnaamijkan ayaa waxaa idinla socodsiinayay Maxamed Cali Juxa. tan iyo mar kale waa inoo nooli kulanti. wassalaamu calaykum. Allah Allah Allah